السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي نزلين بيوتي channel كحرن كسو دوادا maanta halkan waxaan rabnaa inaan ku sameysano juice oo passion iyo carrot iyo limo orange laga sameeyay aad ayuu macaan badan yahay waa arki doontiin sida ku sameysanay si fudud u sameysan kartid ayaan tusinayaa markaa ka please asxaabtada naga subscribe noo saar haddii nala joogtayna comment like una sii share garay asxaabtada kaleeta sida aad ugu faa'iideystaan waa ka hadan ujeeda anaan dhadhaminaa insha Allah ya caadi ma ahan dhahay aad ay u macaan yahay ya dhanaan ma aha macaan waaye adi macaan zaidna ma ahan sokorta sida aad ugu darsatid le waaye caadi ma ahan aan ku dhahay fridge ka gashanaysa soo qabow cabaysa kaal iska arag ya haddana waa kaas halkan waxa ku heesanaa waa carrot waa soo hoolay ujeeda waa kaas halkan waxaan ku heystaa waa limo orange oo 4 xabba soo miira iyo 5 xabba oo passion iyo wax yar oo sokor xaq yaalo waa kaas qiyaas sokorta adi macaan hada zaid u jeceshahay inta rabto ku darsan kartaa haddana waa kaas marka ugu horeysa carrot-ka ku soo shuwaaya carrot marka ku soo shubo kadib waxa ku soo xijinaya passion-kii waa 4 xabbo oo passion ah passion badan dhanaan oo kaaga dhigaya marka adina isku yareysid la isku day sokor waxaan ku soo darsaday adi oo 4 qaando oo kaleete kadib waxa ku soo darsaday limo orange haddana waxa ku soo daray waa koob oo biyo caadi ah marka waa dabooleena waa soo shiidanayna insha Allah waxa loo baahan yahay inaad si fiican u soo shiidid kadib isku soo noqonayna insha Allah marka soo shiidano ujeeda hada juice-keena waa soo shiidanay kadib waan soo miiranaynaa insha Allah waa ka saahay waa ujeedaan sida uu soo xumbeeyay waxa saas uu soo xumbeeyay waa passion-kii kaasa hada marka wax biyo kale kuma soo dareeno waa soo miiranaynaa waa isku soo noqonaynaa insha Allah marka soo miirano akaasay marka soo miiranay juice-keena isku soo noqonay hadarabti fridge ka gashan kartaa hadarabti saana ku cabi kartaa balse marka fridge gashto aad ayuu macaan badan yahay qabow oo zaid oo aad u macaananaya marka qabow ka dhigatid haddana waa kaas sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh